Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Ruuxi Home Decor. Waa walaashiin Raxma Ruuxi. Maanta waxaa idin wadaa dhiirigelin nadaafad yar rabaa inaan boobsiis iska sameeyo insha Allah. Oo gurigan saan iskugu dhex kaasana ujeedina iska hagaajiyo masha Allah. Marka waxaan rabaa inaan oo jikadan saan waaye saa ujeedin marka armaajiyalkaas oo jabsan waxaan rabaa inaan iska hagaajiyo because way iga jabeen maxaa la dhahay bahalaha aan geliyaa waxay ahayn kuwa daciif ah marka way isku dhexdhexeen marka insha Allah inaan toosiyaa rabaa saa ujeedin musqushina waatana iyadana wasaq waaye marka inaan hagaajiyaa rabaa hadeertaana soo kacay marka inaan guriga si fiican iskaga kala hagaajiyaa rabaa kood hore masha Allah subaxdii markaa soo kaco the first thing aan jeclo waxaa waaye inaan daaqadaha aan daaha ka qaado oo qolka aan iska hagaajiyo aan goglo maadaama oo hadhow tirtiraha oo gadaal dambe aan ka tirtiran doono laakiin kood hore waxaan jeclahay inaan sariirta kuwa aan iska goglo daaqadana iska furo oo si hawo fresh ay igu soo gasho masha Allah marka inta saa ujeedina maanta waxaa waaye roog inaan banaanka u bixiyay ahayd maalmo badan uu ii yaal dhulka marka kisto timisiman uu lahay waxyaabaha gagalo marka kama baxayaan hadii oo timo uu leeyahay rooga maadaama oo vacuum ay haysan marka waxaan sameeyay roogi dhan aan qaaday miiska saa ujeedin waa kay dhinac seetan u dabagediyo istaajiye roogi dhan aan bixiyay banaanka kusoo hurgufaa ka bacda insha Allah marka seetaas uu hagaajina waa kana marka tirtira ka bacda guriga aan bixiyay sorry waxaa anoo shaqada haay ma duub kari because hal kaamira leh gacmahayga iyo kaamirada wixii dhan iskuma keeni kari marka saa ujeedin masha Allah waa kana fadhigi waa kusoo celiyay rooga maxaa la dhahay waana soo tirtiray marka insha Allah waxaa ii hartay musqusha oo dhaxda iyo qolka insha Allah inaan soo tirtiro iyo maxaa la dhahay jikada inaan iska soo hagaajiyo iska soo tirtiro marka waa kana musqushan saana wasaq u tahay roogina waan ka bixiyay banaanka laakiin hadda waxaan sameeyay alaabta dhan jikada waa ka dhaqay armaajadana maxaa la dhahay waa geliyay inkastoo si fiican u toosan gadaal dambe ka toosin doona marka waa kana wax yariis oo alaaba yaala meeshan waxa yaala waxyaabo oo DIY ah sameeysan rabo saa ujeedin insha Allah videogan xiguu noqon doona DIY ga sameyn rabo marka waxaan rabaa inaa vase oo fadhiga yaala inaa miraayadaha sida kusoo dhidhijiyaa rabaa oo si qurux badan aan ka soo sameeyo insha Allah waa isla arki doona soo noogu soo baxo marka walaalahay qaaliga waa kana waxa sameeyay jikada wali dhiman wali si fiican maan u sameeynin laakiin insha Allah iidan waan toosin doona waxa way markasta aad shaqadii ku jirtid ilmaha ka dhaxgalayaan ma marka waa kana hadda waxay gaartay haweeney gaartay waa afuray marka afur ka bacdi jikada maanta cuntada ku karsaday iyo wixii dhan wasaq waaye marka saa ujeedin horta alaaba iska dhaqay intaan afuran ka hor xogo alaaba iska dhaqay marka wax yar ay hare oo labado saxan adi wixii aan isticmaalo oo ugu dambeeyay sinkiga ku dhex ritay moobkeygana waa soo qaatay marka waxaan sameynayaa gaaska kood hore aan soo dhaqaa insha Allah ka bacdi meesha dhan soo tirtira alaabta iska dhaqa waa arki doona suuq soo baxo guriga nadiif masha Allah waxaa jeclahay semberi adinkana idinku dhiirigeliya habeenkii shaqada la qabsado habeenkii guriyaha la iska nadiifiyo saa ujeedin walaalahay alaabta dhan waan dhaqay armaajada waa toosay saa ujeedin hadda way fiicnaatay marka waa kana gaaskana waa soo dhaqay saa ujeedin sinkiga si soo nadiif ah alaab dhan ku jirto marka oo alaabta habeenkii iska dhaqadid oo qashinka banaanka iskaga bixisid waxa waaye baraambar see kugu imaato way adkaanaysaa marka masha Allah xabada hata diriska kaaga imaato waxa wax ay cunto markay waayso way bixaysaa laakiin hadii kale way kugu dhadhaleemaha meesha way dhiganaysaa way degay marka walaalahay qaaliga December waxa idinku dhiirigeliyaa habeenkii inaa shaqada la iska qabto gurigaada nadiif ah subaxdii waxaan ku dhahay hata hurdada hada ku daahdid hata 5 saac amal ku gaartid mise 4 saac ku gaartid wax ka dhul yaalo male waxa waa isxubtaa ma ho gurigeena nadiif u yahay waxa ilmahaaga tartiibko inta hoosta gashida iska jiifaysin ilaa xilliga ay ku kiciyaan soo kicay markaas laakiin hadiiba oo wadna kurkur ku jiiftid waxa wareer waay maseexan kartid maanta dhan waxa leedahay Allah guriga wasaq Allah say ku jiifa Allah waa kana saa ujeedin masha Allah qolkiina waa soo taagay waa soo tirtiray masha Allah carfisadiisa ku soo buufi kaal araga ku dhahay marka walaalay qaaliga waxaan dhan waxay tahay dhiirigelin masha Allah dad badan waxa maqlay gabdho badan dhahaan wallahi aniga fadhiga ka kaca insha Allah maxaa la dhahay waa saana sameynaya kana sameynaya ina lagu daydo waay masha Allah
sideedaba maxaa waaye commentiyadiina quruxda badan dhiirigelin ay tahay waana ku faraxsanahay sida qurxoon ay soo dhaweyseen iyo sida qurxoon ay la socotiin maasha Allah oo videoyadeeda ay ugu daawatiin walaalahayga qaaliga waa idinkaaga mahadcelinayaa intaas anina insha Allah wax kasto quruxsan waa idin la wadaagi doonaa waa idin soo sameyn doonaa wax kasto aan sameynaa insha Allah haddii guriga xataa aan xaaqayan ku dhaw waa idin soo duwale markasta intaasna waxay ii tahay dhiirigelin maasha Allah marka walaalahayga qaaliga waxaa idin rajeynaa inaad ka heli doontiin saa ujeedin waa kana markii gurigaaga adi nadiif uu ku yahay adi xataa qalbigaaga ku degan waxaa waaye dad oo marti oo iska socdaan oo ku sheegaynin inay ku imaanayaan camal ku imaanayaan maasha Allah waqti kasta inaad adi iska taagnaatid way fiican tahay because hadhow waxaa adoo isdhex kacsana lagu imaana dadka qaar waxaa marmarkoo waa lagaa soo kordhacaa leemaho marka inaad is dhiirigelisiin oo mar walbo meesha qaldan guriga laga toosiyo oo kaal arag laga dhigo saa ujeedin musqusha banaankana waatana iyadana waa soo hagaajiyay waxeeda soo dhigay saa ujeedin intana waa kana jikada roogeeda kusoo celiyay maasha Allah marka walaalahayga qaaliga ani waxaa mar walba inaa idin dhiirigeliyo inaa idin push gareeya jeclahay maasha Allah marka waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontiin videoga haddaa igu cusub tahay fadlan subscribe iyo saar haddaa hore ila joogtana waaba ila joogtay la share garay walaalahaaga iyo commentiyadiina insha Allah qofka igu cusubna insha Allah subscribe ha ii saar walaalahayga qaaliga waxaan idin rajeynayaa inaad ka hesheen framekaas meesha ku jiro luuqa aan DIY ka sameyn rabaa insha Allah I wanna remake it again marka walaalahayga qaaliga I hope inaad ka heli doontiin videogayga marka sorry guys wallahi hadda haweena ay tahay mugtahay videoga markii oo la edit gareynayo waxaa waaye ciyaalka markay seexdaan leeyahay anina maanta dhan iyaga ka dawareegay marka waa daalanahay saas darteedna inaan video idin soo sameeyaa rabaa marka I hope inaad ka heli doontiin insha Allah hadaa ka heshay like saar hadaa igu cusub tahay subscribe haddii hore ila joogteen comment iyo share la share gareey walaalahaaga saa ay kana isku dhiirigeliyaan ugu faa'iideystaan waxyaabaha quruxda badan aan soo gelinay framekaas vaaskaas meesha ku jiro waxaan kasoo dhigi rabaa vaas qurux badan insha Allah waan idin la wadaagi doonaa marka maasha Allah walaalahayga qaaliga waa idin kusoo dhaweynaa channelkayga intii igu cusub soo dhawaada inta hore ila joogtay still adinkana soo dhawaada maasha Allah marka waxaa idinkaaga tagayaa sidaas iyo maca salaama insha Allah habeen wanaagsan haweeney noo tahay bye bye